sheekada ninkan waxa uu lahaa aragti ah inuu dadka isku xiro oo wax ka bedelo habka lacagtu u kala gudubto qaaradaha. waxa laga yaabaa inaadan garanaynin isaga, laakiin waxa macquul ah inaad la xiriirto qoyskaaga adigoo isticmaalaya adeegiisa. la kulan Ismaaciil Axmed oo ah halabuuro Soomaaliyeed oo jecel isbedel. sanadkii 2010 magaalada London wuxuu ka aasaasay World Remit, shirkadda xawaaladaha dhijitaalka oo shaqeysa si caalami ah. Ismaaciil oo ka duulaya rabitaan qoto dheer oo lagu abuuray isbedel wanaagsan, waxa uu bilaabay hami uu ku doonayo inuu wax ka bedelo xawaaladaha. maanta World Remit waxay wax ka bedeshay ganacsiga caadiga ah ee xawaaladaha, iyadoo oo xafiisyo ku leh magaalada London ee dalka Ingiriiska. waxaana adeegeedu uu gaaray in ka badan 130 wadan oo ku jira Imaaraadka Carabta. Imaaraadka World Remit waxay sameysay isku xir xoogan oo siisay hab aan kala go' lahayn oo ku haboon dadka si ay lacag isugu diraan hab caalami ah. Ismaaciil Axmed waxa uu ku guuleystay inuu isku xiro dadka uuna wax ka bedelo nolosha si uu dunida saameyn ugu yeesho, isagoo xal u helay dhibaatada shaqaale badan oo ka shaqeynayay meel ka fog guriga.